وينك شرفت على مدرسة فردية أدنى من التنمية وحين ما تسكون منها وحوي أن هدي لهاي رالك النقطة إن أنك هذا النوع هوينك أو أحلف دبرتين حلقة أي تاجين هنا إتكستابا يكدر بسنتهاي كوتلنا أي نودي ديان هدي أي نبرتاد إنه إسكود دقائقنا هدين هوين هاي وحقبا أنت الدمر صوب حدينا نرب صوبحين واي هوينكو وأكو كلية القاضي له إن ماركتي أي ويشان سمر بدن كيوجا لبعضها الله وحكستبا مركاين لينا دياليو معها وحي دينتو أنا إنه قولي دينتو إنه دي رادين ما إنه أمرنا وحي ساي دينتو إنه قشيني هوانكو هلان حق بينو لين هاي مركاو حمدي دن هاي لبكون يشنتي خير كاس تيكو مجرو خير كقطدو هوانكا يودك لقتري ده بدين هاي لو دي هاي كمجره marka inaanu helno oo xeerka aanan ogolayn ayaanu jecelnahay ragayga inaanu u bandhigno iyaguna aynu ogolaadaan aad baan idin magacay waa Safiya Cabdinuur alaykum salaam waxaan kamid ahay xisbiga kulmiye waxaan ahay musharaxad u taagan golaha baarlamaanka sheegaynaa oo baaq dheer u diraynaa haweenka gobolka awdal annagoo intayda halka joogta aan matalayno inaanan ogolaanaynin koota la'aan aanan ogolaanaynin inaan qayb ka noqono loo diiyo golayaashii inaan ka muuqno marka aad eegto Soomaalida hareeraheena dawladaha hareeraheena iyo caalamkaba goob kasta oo baarlamaan haweenku waxay boqolkiiba 30 40 50 sometimes qaarkood ka hor maray ka helaan marka Soomaaliland haween ma jiray leeyahay haweenku ma jira miyaa la leeyahay raggeenu ma jiraan dumarku weyna leeyahay ma waxba ma nihin bayna leeyahay waxa weeyaan وأنا نعدكنا موجنا وحويا رجع وحويا إلهي أنتوا إنما يضيعين إن بين السيسين أنت إنه لا أنا وين كفر عنها هوين بدن حبل بدن عقول الله صباحي محي نود دي محي نجهر تاجا الشرع جينود دي هالكوكيا لا وحويا دولتنا يصدق لنا شرع يقول الدجنين وحي نكربنا وحي ما لا صار هذانا يا هاي أنا بدمرك أنا جو أفكر لحظة قبل هواك سمع لك هذايا وحن عض داري عض كام بقدريا إن أنا وح عضين ليلها أنا كقيب قلي إن أنا دورش أنا كقيب قلي إن أنا قاطع عنه إن أنا قاطع عنه إن أنا كيو قلين رقدم بأنا كيو قلين وين نقطع عنها ما نقطع عنها هاي إن أنا رقدم بكيو قلين ما نقطع عنها هواك سمع لنا طباق عسان درينا لحظة قبل سمع له هواك وعمد أروعلنيها بلد النجاة ومركز تجرب تاجن هواك مركز تجرب تاجن هواك صباحا هواك الصومال لأن هذي هو اللي جرب تاجن أدب العلمية مقعد وهي محمد إسماعيل وحنا مشرحات ترتمي يساق لها برلمانك لكن ما أنت وحنا مبرر ولا تمحي لفتها صدق قل حسب قرن وحي جوان كجارين إن دور الشهر اللي هو قل السنة لابد يكون يشنته لابد يكون يشنتي هواك قطع هواك وكم قنتهاي dadka laga tirbaday way ka maqan yihiin markaas wax lagu dooranaya hadii ay maxay ilaahin haweenku waan ka maaranay oo haweenka laga maarmay waxaan haweenka Soomaaliland soo jeedinayaan baaq u diraya inay guriyooda iska joogaan cidna aanay dooran saddex xisbi qaran weyn ognahay waxa halka gaarsiiyay waa dumar cid cad u taagan waa dumar cid soo saartay waa dumar cid dawladda dooratana waa dumar marka haweenku waxaan baaq u dirayaa inay iska joogaan guriyooda waxa kale oo baaq u dirayaa saddex xisbi qaran iyo labada gole sharci labada gole doorta ma bay gaarin imika laakiin saddex xisbi qaran waxay saxeexeen in haweenka la laalo dadka laga tira badan yahay la laalo markay tahay 2005 baa lagu galay doorashada haweenkina waa la laalay dadka laga tira badan waa la laalay marka dumar oo arkayna meesha joogto waayo wax rag waxay naga soo qaadeen hangool maalin hawlad bala tagaa maalinta la inoo baahan yahay durmaan kale inoo tumaalo inoo yeedha maalinta la inoo baahan yahay cadcad la joojiya laakiin maanta waxay dhahan la idin baahna dumar guriyana aan ku ekaano hadii la diiday kootadii waxaan leeyahay anigu Soomaaliland way khasartay waxay khasartay 2020 joogta markii 2005 dib ugu noqotay waa arin laga yaxiixo laga nayaqsado haweenka Soomaaliland gaar ahaan haweenka awdal waxaan diyaar u ahayn oo aanu rabnay inaan ka mid dhalino walaha wakiilada oo halkay ka soo baxaysay sharci dejintu waayo waxba inaga maqan awdal waxbay tabaysaa cid wax u ogina ma jirto halkayna madani tagay ka khasaareen
ay hal maalin intay u loobin gareeyaan ay xeer u dhigi waayeen ayaanu rabnay maanta inaanu gaadhno haddii lana gaadhsiiyo ka xumay magacay waa Sahra Cami Maxamuud waxaan ahay musharaxad ka sharaxan golaha wakiilada ee Soomaaliland haddii Ilaahay yiraahdo kor iyo hoos bana si ay noqotaba maanta cod dheer iyo cod gaababa waxaan ugu diraynaa dhammaan hay'adaha ay khusayso oo dhan ayaan u diraynaa in la ogolaado oo la meel mariyo in kootadiina khasab sindulle waliba ma baryeeno la noogu ansixiyo aynaanu galno dagaal ka dhana ya walaa dawlad walaa rag inkastoo ragga mas'uulkeeniin haddana waxaynu xaq u leenahay oo waabarmayno waa inaynu dhexda xidhanaa waa inay gabadh walba oo inteeda hamigu xataa ku jiro waa inaad garbahayaga noqotaan oo la arka haween baaxad leh oo u dagaalamaya haweenka bal waaye haween meesha ma inaagaysanne maxaan kula xisaabtanaa maxay yihiin baa lagu oranayaa adoo gabadha lagu oranayaa waa naaga maxay ku tari hayeeli maba aanaan tagin halkaa ragu magaynay dee bal marka aan tagno aad xisaabisan oo xatireen weyno ayaa naga quusan doontaa laakiin haddii ayba dhacdo ayba suuragal noqoto waxaan rabnaa inaad maanta cadaysaan bareeraha dumarku boqolkiiba waa 5 iyo 60 ayay ka yihiin dadka maadaama inta ka nahay hablaha musharaxiinta ah waa inaad u codeysaan codka ragga siinaysiin allagugu sasabin waa abtiga oo walaalka oo inaad yarka waa kan midnaba ka diida inaad yarka haduu maanta galo meesha adiga maanta kugu dameer dhabka ka wada أنا بالنسبة لهذا كتبية. كاين حسب وطني وحنا هاي مشرحات وتاجو ولا هديجان كا أنا بدي دوم كاس فضلنا نحوش الصور دمير لكن بقدرهم بارورنا يا أنا دولة أقدر ما يباع لكن هو وين هم قدر يباع أي كجت الشنا يا أيوه إني ندور شد بدي بكرة هذه هواك وتضد الله في الوعي أي كت الشرع إنه يجوا هناك مدحوين صور شرحان يحل بعلمه يجوا جونس وقاطع أنت صف درجارية مرتبو نحن كورته وإنت اللي يرون وحن كهر لنا فكر كهر من سوتشي أنا كل وفكر عن ورقمنا أو عن ماركتي سكوبنا وحويا رجوا حيكون الشريعة إن أيوك أو دور إشان يتوصل ضد فرديا قولي ياشي شرعي دجنتا فرديا وحيكون الشريعة إن أنا دمر سوقي sababta aan islaahay aanay dumarka u diidayaan waxbay qarsanayaan dalka in wax loo qabto lama rabo dadka in wax loo qabto lama rabo haddaan halka tagnana waxbaan fashilinaynaa waxbaan qabanaynaa waxbaan xamar habla ka hadlay waxay yiraahdeen maxaan ku yiraahdaa 30 baa la sii lixiraad ma ku fadhinaa konton baa gaadsiisanayna rag alla tartabana because way aragnimay heleen oo qoon bay heleen marka waxa weeyaan mar walba dumarka iyo ragga waxa maartay oo qoon dheer ama fiiro dheer dumarka wayna ogaadeen inaan ka gaarin dagaalan ka galo taasaynu isku ognahay inoo balan halkan maxaad uga celinayaa ururka nagaad mar walba maxaan raday isagu u taagan kaalingelinta iyo maanta taageerida haweenka ururkaas oo aynu iska leenahay hadaynu haweenahay maanta inaga waxa kaliya ee ayna siinayaan ee walba intaas hadal ka taagan yahay waa 8 gobol walba 3 qof kaliya oo 3 xisbiya taasi anaga rajadeedu waa ka weynado marka hore waxaan ka doodaynay in kootada la kordhiyo ma fahamtay maadaama ay sidaas tahay maantana kootadii baa la isweynay hadii kootadaas aanay soconaynin waxa weeyaan raggu iyagu ha isku filaan inagu haween hadaan nahay inaga shalayto maxamed madaxweyne inaga soo saarna xisbiga inaga soo saarna baarlamaanka inaga soo saarna inanka xaragoonaya ee qurufta badan ee tayga xidan ee TV-ga ka hadlaya ee faanaya hooya soo saartay hooyada suuqa fadhida ee subaxii ama quraac iibinaysa tamaandada ama dusha ku xamaalanaysa waxay soo saartaa hooyo ragga maanta jaamacada ku jira marag baa soo saara maanta hadii ilmo la xiro hooyada taagan station ka taagan marka hooyo garabka dhan ee Soomaaliya weeyaan Soomaaliland weeyaan yalla inuu danaysanine aynu xilno ku sugeena haween hadaan anaguna bal waxaanu qaadaynaa hadii aan helno kursiga inaan wax qabano ahaan haweenka musharaxnimada doonaya hanka siyaasadeed leh halqadada badan baa hortaagan halqadadaha badan oo hortaagan waxa ka koow ah kuwiina aynu dooranay aynu muruqeeni meelkiina aynu siinay aynu kuraasida geynaba aynu hortaagan oo aanan ina doonayn inaan wax qaybsano
haddii la diiday oo kootadeenii la diiday inaguna maxay inoo talaa inaan inaguna qaadacno oon iska diidno inaguna mar haddii inaga layna diiday de inaguna iyaga han diidno inaan inaguna iyaga diidno oon iska diidno yaa inoo talaa talada aynu isku ognahay wataa inaan haddii layna diido oo kootadeena la qaadi waayo oo hadalkeena iyo maxay tahay waxayna dumar ahaan laynoo dhamin waayo inaguna waxaan waan diidaynaa taas inaynu isku ognahay si aynu haweenahay daro dibri dal baa la yidhi kootaha weyn baynu ka hadlaynaa tii kalaaba la isku haystaa horta maxaa gobolka awdal baaba la isku haystaa oo tii raggaa la isku haystaa tii haweenkuna awalba laynooma ogolayn imikana waaba la sii ansixiyey inaan la ogolayn marka dhammaanba haweenweynaha 6 gobol ee Somaliland ku nool waxaan leeyahay waxa wax soo saaraay waa dhalinyaro iyo haween dhalinyarta aynu subaxii ka abaabulo guryaha eenu nakacaho iyo doorashada taga soo doorta aan dhahna weeyaan haweenkuna xagga lay ka xamaysan yihiin oo anaga ordaynu maan saragna horta wax lagu daalaba haween hadaynu nahay ma hayno ya innagaana isugu wacan inaan isxaqirno hoos isku reebno midba midda kale ay jiido raggi baa wax qaban waayay hiblaayo maxay qaban Soomaalidu waxay taraa lax waliba shilalka ay isdhigto ayaa lagu qalay halkaan isdhignay baa laynagu qalay marka waxaan idin sheegayaa de haweenow ama waynu ka tashan doorasho inooma soo bixin haddii taa haweenka sidaa lagu qaadaco doorasho inooma soo bixin haddii 13 kursi wax ku gala layna yiraahdo ka tashada aayihiinana dib u eega ya waxa weeyaan inaad fiiro dheer yeelataan ayaa loo baahan yahay ma aha hiblaayo waa reebel ma aha hebel waa 10 hablood oo reer awdala hadday soo baxaan oo isku hooyiyaan aabii waa reer awdal